markaasa maxayna ku dhacay libaas aljuuc gaaja laynoo labisay waa garanaysaan xilliyo baynu soo marnay magaalooyinka Soomaaliya kamida loo bixiyay magaalooyinkii geerida oo dadku ay gaajo tarab ugu leeyanayeen magaalooyinkaasu waqtigaas wax yar ka hor barwaaqo ahaa xamar say barwaaqo ahayd aqliga qofkii jooga garanay magaalo qurux badan xeeb ku taala dhul banaan ku taala wadigi ku dhow yahay wada green ah reerka xoogaa badan helay iyo kuwa geedka isku nolol ku nool isku school dhigta isku jaamacad dhigta isku bulsho sidaasa ayaa barwaaqadaas u muuqan weyday ama waxa la oran karaa dad danaystayaal ah oo ama ha aadaan cadow khaarijiya ama kuwa Soomaaliya ha ahaadaane oo iyagu dantoodii waayay gaarka ahayd ayaa dadka ku guuray dabeetana dalkaas asaas dukun daal ku looga dhigay waxa ku xigay cabsi gaajo khafaad wali waxaan ka baqaynaa faqrigii iyo gaajadii wali wax inooma fadhiyaan sababtoo ah barwaaqadii baa waa la qariyay nicmada Ilaahay maxaa yeelay xamar markay barwaaqada ahayd oo baydhabo jannaay barwaaqada ahayd aniga 85 ka baydhabo igu horeysay magaalo barwaaqo ah oo aad u qurux badan oo jidad qurux badan leh yaani maxaan ku leeyahay oo dadkeedu qurux badan yahay oo wada giriina oo inta aad xamar ka tagtay ilaa baydhabo u socotay dhulku wada giriin yahay ya ayay ahayd magaalo waxay ahayd marka tagtid baydhabo aadan xamar u baahanay نعمدي waa lagu gaalo waa la qariyay maxaa dhacay waxa dhacay cadaalad baa la waayay sinaan baa la waayay ilaahay in laga cabsada la waayay kalaabiyo iyo meelo lagu tuntaa la furtay ya waa garanaysan Juba Night Club Uruba Night Club muxuu ahaa 54 Night Club Jazeera Night Club najaas oo dhan baa wadanka laga furay ya shaneemooyinka oo de inta soo shaneemo ah oo joornaalka lagu soo qoray caawiye shaneemooyinka oo idaacada laga sii deynaa caawiye shaneemooyinka oo gabdhuhu ay dariiqada taagan yihiin gabdho jirkooda iibinaya oo lifti qaadanaya ya ay taagan yihiin markaad jidkii cusbaa oo liida tagtid iyo wadada 21 Oktoobar iyo wadadii Jazeera Digfar aadaysa iyo يعني حدث ولا حرج فساد كاس وبالعكس دولته maxay qabanaysaa walaad meel ka hadlay inay xirto nin ka soo horjeeda inay xirto laakiin fasaadka kama hortagay walaw ay runtii marka run la sheego dhanka kale حتى fasaadka qaybtiis ay jansuuro ku haysay oo ilaalinaysay oo filim kale iska badhigi jirin isagoo wakaalada filimaadka soo marin oo alla jansuureyn oo waxyaabo badan laga goynin ma laba dhigi jirin waa garanaya dayaraantaydii waxa weeye waxyaabaha badan oo xunxun waa laga goyn jiray oo dawladdu ma shaqo la'ayn runta markii la sheego laakiin hadana fasaad baa jiray fasaadkii wuxuu dhaliyay inaynu dalkeenii burburino goboladan oo dadka badankiis ay soo qaxeen oo qax ku yimaadeen oo magaalo yar yar ah ilaahay waa u nicmeeyay subxaanahu wa ta'aala nabadgelyo siiyay wala nabadgelyadu waa jirtaa barwaaqo alla si marda nabadgelyo haysatid barwaaqa ba haysataaba magaalooyinku waa dhismeen jidadkii baa dhismay hoteeladii baa dhismay guriyihii baa dhismay waa la barwaaqoobay airportka la helay dekada la helay adduunku waa isku daba dhacay laakiin maxaa daba jooga fasaadkii shala lagu burburaa daba jooga ya banaanka hada habeenka u baxdid waxa gaari duurka taagan oo fasaad ka socdo dawladda xil baa ka saaran arinta iyada odayaasha iyo akhyaarta dalka xil baa ka saaran culimadu inay ka hadlaan xil baa ka saaran ya meelaha qaybtood mugdigaaba darbooyin la dhigtaayo waxa waay waa fasaad iska jaari fa socda soo bujid waxaas marka maxaan ku leeyahay kala tabashada iyo geedkiga iyo dadku inay kala tabasanayaan in la wado in aaminsan dadka qaybtood in laga wado waxaasuna waa jiraan waxaas waxay keenayaan marka istiqraar xumo waxay keenayaan inaynu abaar dareeno midaada kaleeto ilaahay subxaanahu wa ta'ala nicamkiisa hadii aan laga faa'iideysan waa waayaysa barito dadkeena asalka iska jooga ilaahay subxaanahu wa ta'ala biyaha uu soo dajinayo qadar iyo jaangooya lagu soo dajiyaa markuu alla waa inoo jeeda intaas oo tog baa dhulkeena mara
biyaha markaynu qabsan weyno Indian Ocean-ka isku shubaan qaybtoodna ay Gulf of Aden isku shubaan oo cid qabsanaysa aysan jirin dayrta laga joojinaya laana nicmada Ilaahay ku siiyay waa beekhaamin weyde waa cashan weyde waa ka faa'iideysan weyde ya waa u jeeda adiga biyi waxa la oranayaa intaas oo tog baa ragmeeyo oo waxa weeye Boosaaso iyo maxaa ku leeyahay iyo waxa kala xirmay iyo maxaa ku leeyahay iyo Garowe iyo Qardho iyo baa kala xirmay oo togi buraan baa go'an ama togi durdur oo ceel daahir baa go'an ya marmar qaybta todobari u go'anaada biyaha xagee u socdaan Indian Ocean-ka isku shubayaan dawladda iyo shacab waa garan weyne inaan biyaha qabsano oo dhulka beera ka dhigano oo xeelaheena aan ku rafaadno guuraayo aan xareysano oo dadkeena istiraatiijiyad loo sameeyo oo qoysaskeena 10 qoys loo mideeyo 10kii qoys ba leeyahay xoolaha isku darsada dhulka daga xeryaha isku xareeya halka caws uga beera ya calafkii u sameeya suuq loogu raadsho caanaha warshado loo keeno lagu hagaajiyo caanaha de halka maalin uu intaas khasaaraya in caani marka caana long life la sameeyo in maxaan ku leeyahay farmaajo ama jubna laga sameeyo wixii hadeynaan marka inagu qabsanayn de ciqaab baa imaanaya ciqaab ayaa imaanaya xagga kalena fasaad baan ka wadnaa oo fasaadkii ma celinayno dadku waa muslim waa fiican yihiin dad badan baa tukada dad badan oo akhlaaq khayr jooga laakiin dad badan oo waxa jira akhlaaqda ka xumaatay wiilal iyo gabdhaba dad waaweyn iyo kuwa yar yarba waa kuwa baabuurta banaanka ula baxaya waa kuwa meelaha cidlada darbooyinka dhiganaya waa kuwa dariiqyada intay istaagaan maalin cad isku ruxaya yani waxyaabahaas oo dhan ma aha Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inoo jeeda Ilaahay waa inoo jeeda Ilaahay wuxuu ka sheekeeyay qoomamkii la rogay ayagoo awood la rogay reer cad baa la rogay Thamuud baa la rogay maxay ku mutaysteen cid naga awood badan ma jirto Ilaahay awoodda Ilaahay waa ilaa weyn dukun daakum baa laga dhigay fircoon baa yimid isagu waaba kibray wuxuu yiri ana rabbukum al-a'la ana rabbigiina sareeyay fircoon wuxuu ku dhacay wadinka ogaa bada biyaha lagu qarqiyay biyi markii lagu qarqiyayna waxa weeye ana inuu toobad keeno ducay waa goorma dhaxin la qarqara way ana waqad asaytan waa goorma wala taxiina manas xilligii aad carari lahayd ma aha maanta waa lagu qabtay waa dhamaatay marka maxaa u malaynaysaa inaga iska daciifka ah maxaa u malaynaysaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay wuxuu yiri wallahi faqri idin ka baqamayo mal faqra akhsha alaykum faqri idin ka baqamayo waxaan idin ka baqayaa adduunka in la idin fidiyo oo marka aad ku tartantaan oo aad maaragta ku halaagsantaan sidii ummadii idin ka horeeyay ugu tartameen oo ugu halaagsameen dhaqaalaha haddaan dariiq xalaal loo marin dhaqaalaha haddaan lagu tabcin oo la tarmin ya dhaqaalaha waxa la rabaa Ilaahay mesela adigoo faqriga Ilaahay $10,000 ku siiyay $10,000 waxa la rabaa inaadan kibir iyo batrad uga bixine waxa la rabaa inaad maal gelisid oo aad ku mintidid oo aad dhaqaalaysid marka 10,000 heshid isla markiiba bari masuuqta teersa inaad cuntid sax ma gaar horta bari masuuqta teersa inaad cunid kartid gaar 10,000 ha noqoto 100 milyan ha noqdo milyankii 10 milyan ha noqdo ku tacado xalaal u maray zakada ka bixinaya ha noqdo laakiin markii Allah ku siiyana hadaa batrad iyo kibir ka qaadid ya oo baabuur ayna u baahnayn midna hada anaga Garowe joognaa qof kasto Garowe jooga baabuur uma baahna bal dadka safarada iyo aadaada ay waa garan laakiin dhalinyarada yar oo shaqaysa markuu shaqo $500 hela maxaa khasbaa intuu bangiga tago inuu gaari deyn qaato uma baahna gaarigaas gaariga uma baahna waxa loo baahay haduu deyn qaadanayo waa sheegay waa ku celcelinaya 100 dhalinyaro 200 dhalinyaro 500 dhalinyaro bangiga intay tagaan meesha 4,000 gaari ku gadi lahaayeen inay qaataan $4,000 oo deyna mid walba uu qaato dabeetana ay sugeeyaan oo ay ku sameeyaan ganacsi iyo wax soo saar dalka aqliyadaas hadeynaan samayn wixii babarakoobayaan mana xoolaliin waa naga u jeedo de magaalooyinka soo dhismaya baad ka garanaysaa dadku gawaariday wataan baa ka garanaysaa sida loo nool yahay looma sinna waa sax dad waxa haysan waa jiraan laakiin almuhim dhaqaalihi dalku ku jira maxaa kale oo jira marka qaybta dhaqaalaha haysta istiqraarka laga qaadaya oo niyada waxay inoo sheegaysaa war meeshan Soomaaliya la yiraahdo khayr kama soo socdee lacagta Zambia kuwa Zambia tagay ku khayray Konga tagay bangiyada waa laga saaray lacagta shirkadii lacagta waa laga baxay
sheerarkii waa la iibsaday waxa lagu socdaa Konga Zambia Kenya waa laga dhargay waa laga sii gudbay Mozambique South Africa halkaas la wada aadaya dhalinyaradu waa isjiidaysa odayaashu waa isjiidayaan ganacsiga waa isjiidanaya sababku waa maxay nafteena waxay inoo sheegaysaa meeshan khayr kama soo socdo meeshan khayr kama soo socdo waxba ma yaalaan lafahaaga la carab waxba laga heli maayo marka dadka adeer maxaa xagga ka doonto wuxuu adeer meeshan wax ka soo socda ma jirto meel u socotana lama yaqaan meel ka socotana lama yaqaan haye dad ma joogo oo dadka dad muxuu ku iimaanaya dadku wuxuu ku iimaanaya waa in asbaabteedii samaysaa ya hadda ninkan Trump oo caadada ka dhigtay inuu Soomaalida caayo ani waxaan leeyahay horta dhinaca kale to marketing fiican inuu sameeyo waa layna barta jinsiga Soomaali la yiraahdo wuxuu noqday meediyaha caalamiga ah oo dhan ayaa tadaawulaya mid raaca ayada Trump iyo mid yiraahdo marka Soomaalida nama la loodin kara maaha waa Soomaalidu maxaasin fara badan bay leedahay kow waa bulsho iyadu isku xiran oo is ururisa wadanka iskuma xirna laakiin markay dibadda tagto qofka Soomaaliga markuu dibadda tago wuxuu oranayaa masjidkii Soomaalida ige makhaayada Soomaalida ige deegaanka Soomaalida ige aagaasay qabsanayaan community waxay noqonayaan xoog leh qof marka la yiraahdo Soomaalidu bulsho ahaan bay daciif yihiin maadaama aysan midnimo lahayn oo qabyaalad iyo qurun iyo danaysi uu ku dhex jiro qof bay macna u leeyihiin mid baa siyaasadda galaya meel kale u tagaya mid baa dhaqaalaha mid baa si maxaan ku leeyahay shirkad weyn maamulaya mid baa engineer laga dambeeyo noqonaya mid baa dhakhtar noqonaya mid baa tabatana waxay noqonayaan waana bulsho saan sheegay meel ku urursan waa la arkaya markiiba marka halkaasay fadhida halkaasay marayaan halkaasay guriga ka gateen hatta musuqmaasuqa hadda tareen ku aadaynayo Soomaalidu waxay ka tahay 0.01% musuqmaasuqa meesha ka dhacay bulsho ahaana waxay ka tahay bulsho yar laakiin waxa dhibaysa oo u muuqata bulshada muslimka ah masaajidda leh maraakista leh ee maxaan ku leeyahay horumarku ku jiro hanku ku jiro dhanka kaleeto waa sax marka dawladnimadeena la eego iyo wadankeena suu yahay waa gar in layna caayo dad aan midnimo lahayn oo aan wada jirin oo aan dawladnimo aqoonin oo aan meel u soconin oo maalin walba de qumbacadayga laga gaaysta meeshaydii baan iska taagnaay ku socotaa hadda bulshadaas waa ceebaysan tahay laakiin runtii dadka Soomaaliyeed waa dad qiimo leh fiican sharaf leh laakiin Soomaali maxay ku jirtay dantii guud bay ku jirtay dawladnimada waa la wadaagaa Soomaali waa ku heshiin weyn ya deegaanka iyo dhulka waa la wadaagaa Soomaali waa ku heshiin weyn ceelka iyo carshinta waa la wadaagaa waa ku heshiin weyn Soomaali hadda ummad aan wada jirin oo aan meel u wada socon ummad macna leh oo sharaf leh oo gobonnimo leh ma noqonayso shalay markaan dawladda ahayn markii Israa'iil laga qabsaday diyaaradda Entebbe laga fariisiyay Falastiiniintu qabsadeen diyaaradaha hatta Filimaan baa laga sameeyay diyaaradaha Yuhuudda markii la dilayay waxa la halka markaa maraysaan wadan geeska Afrika ku yaala jiro Soomaali la yiraahdo hawadooda lama galo ka leexda haybada waxaan ku lahayn wada jirka dawladnimada maxaan ku leeyahay wax guud oo aan wada ilaalinayno bayna ku lahayn wixii guud waa burburinay haddaan burburinayna ka soo raynimo muuqato ya maalin walba markay xilliga soo dhawaada waxa leeyahay xagee laga aadaya marka waa in gaaladu inoo yeertaa ma teendadii ku noqda ma qof iyo cid baan aadayna ma soo wajeedi dad aan meel u socon siyaasiyiin aan aragti lahayn maxaan ku leeyahay hankooda hiraalkoodu yar yahay kursiga kaliya u muuqdo hatta farsamada uu ka haysan lahaa aan aqoonin mushkiladaas ummadda dadkuna dadkaas ay la kala safayeen dawladnimadii baa lagu waayay taas marka waxay keenaysaa inaynu barwaaqada weyno marka kale waxaan sheegay bulsho caajisaan waxba qabsanay bihi ma qabsanayso dhulkii ma beeranayso ma kalluumaysanayso waxa soo dhan uma jeedaan xoogaa ari dhoofiya xoogaa dawladda u shaqeeya xoogaa sharikada ka shaqeeya oo individualist qof u nool aan wada jirin haday bulshadeena isu tagto oo qayb badan kalluumaysiga u leexato dhaqaalahooda isu geyso haday qayb badan beeraha u leexato hadaynu togaga dhulkaan mara iyo biyaha aynu celinno oo dhulka ku sii deyno waa idinka arkay barbeerta Cabdullaahi Salaad goorma la sameeyay dhawaan baa la sameeyay beerta Cabdullaahi Salaad hadaa tagtid kaagama duwan
nin waxaan mana dalxa inuu ahaa wuxuu yiri jannaala yar waayay qada loogu sameeyay jannaala yar ya garow oo dhan jannaala laga dhigi karaa meel kasta oo la dhireeyo oo biyo lagu shuba saas weey nugaal waliba biyaheedu waa dhow yihiin biyaha in la iska sii daayo looma baahna meel walba hadaan geed ku taagno oo maxaan ku leeyahay aan ku waraabino dhibic aan ku waraabino intaan tuuba yara geyno biyo badan ina kaga ma baxeen ya dhulku wada green buu noqon lahaa hadaynu beero u rogno oo caws iyo aan ku beernana ya meesha hadda halka cimaado maalinta dhow telefoonayay iyo amal goorma la sameeyay hadeera la sameeyay marka fiirsi green waa inta yar oo laga shaqeey waa green maalinta waxaan tagay maxkamadda sare gudaheeda marka tagtid waa jungle maxaa yeelay dhiraa lagu taagay biyana waa lagu shubay waxay ku tusinaysaa marka dhulkeeni waa dhul wax walba ka soo baxaya waa dhul kulligiis green noqon kara waa dhul kulligiis caws iyo calaf iyo beer laga soo saari karo laakiin yaa ka shaqeynay yaa ka shaqeynay barookhle goorma la sameeyay barookhle hadeer ay barookhle markii la sameeyay waa garanaya markii barookhle la degayay dadka hadda beeraha ka sameeyay markay degayeen qaar kale oo Soomaaliya ku qabsaday meesha anaga or meesha cidlo way waxba qabanayna qabane awoowihiina saan ugu yimid inkana saan ku joogtaane anaga wax ka qabanayna daaya barookhle maanta sidii la rabay ma aha laakiin waxa ku yaala kaymo timir ah waxa ku yaala kaymo geed mirood ah dad yara ka shaqeeyay hadii dadka marka la abaabulo oo nolosha loo jeediyo waxa u maleynaysaa wax badan ay dadku qabsan lahaayeen hada garowe marka qardha loo baxayo Abdullahi salaada lagu dayday dhulkii ka sokeeyo dhan waa la beeray Soomaaliya arag intii la beeray waa green qurux way ya togaji iyo biyihiina ilaahay waa ina siinaya hadda deertu ina ka baaqatay guga imaan doona waa inaan guga isu diyaarinaa kulligeen inaan ka shaqeyno injineeradii waa haysanaa iyo aqoonti qalab waa helaynaa Soomaaliya garan dad maan baawar waa haysanaa kulligeen dawlad iyo shacab aan isugu tagno garowe intaasoo ama nugaal intaasoo meel biyaha waa inaan ka xirnaa si uu dooxooyinka intaa la eg u waraabiyo oo dadku u dego buraan waa inaan xirnaa eldaahir waa inaan xirnaa kan qardho qaati billahi laga taagaya waa inaan xirnaa kuwa kale oo dhulka maraayo wadanka waa wada togaas mudug intaasaa marta oo idinka arkay buundadaan saddex qol ee burtilla ka sokaysa biyaha mara biyaha saddex qaar biyaha in kulli la wada celiyo xataa khasab ma waxa la yeeli karaa dooxooyinkan gawaanka noqday baa lagu leexin karaa inta kanaal la jeexo waxa laga sameyn karaa buxayraad sida Tunis ba ay buxayraad u leedahay badiyarooyin xareeda baa la sameyn karaa oo biyuhu nuur isugu yimaadaan oo dabeetana dadku u barwaaqo noqdo laakiin dad waxa la rabaa aqliga inaan ka shaqaysiino ajziga inaan ka baxno fasaadka dhulkeena ka socda inaan qabanno markuu ilaahay barwaaqo ina siiyaba hadaynu niiko iyo geedki ilaahay ugu ka horgeyno ilaahay waa inoo jeeda subhanahu wa ta'ala kalada layna ka qaadaya اللهم استعان عبسي baa layna gelinaya fasaadka ina ku badanaya waxa la rabaa fasaadkana inaynu dadka tawjiihino culimaduna la hadasho dawladuna waxa daahirka qofkii dhuumanaya de mushkilad male ya zinada qofku waa la dhuumanaya laakiin lama ogola inuu shaaric la yimaado shaaric inuu la yimaado lama ogola dawladdu waa inay fasaadka muuqda waa inay celisaa oo tiraada waxa lama ogola dhalinyaradeena waa in discipliinka la baraa walda waxan iyo waxan dhaqankeeni maaha islaamnimo maaha ma fiicna wiil iyo gabarba sida yeela waa in wacyi gelin la siiya ya waa in aynu tala wadaag noqona bulsho aan tala wadaag ahay oo aan danta guud ka midaysnay oo aan meel u wada jeedin ee aqligeedu uu ku simayahay waa inay reer hebel xukumaan waa ku celceliye hadaa madaxweynaha atoltihiin ama wasiirka atoltihiin ama gudoomiyaha gobolka atoltihiin wax gaar oo ka soo galay ma jiro hadaan deer rabina makhaayadaha kaga faafin hanin reer hebel meesha xukuma waxa ka soo raacaya ya cunto ku heli maysid isbitaal ku heli maysid maxaan ku leeyahay lacag ku heli maysid qabiiladuna madaxweynuhu ma gaaraba wasiirku ma gaaro gudoomiyaha gobolku ma gaaro kan qaybtu ma gaaro gudoomiyaha degmadu ma gaaro qabiiladiisu wax la gaari kara ma la gaari kara soo ma jeedin waxa la rabaa waxyaabaha danta guuda inaynu ka midowno inaynu meel u wada socono inaynu danta guud wada ilaashano danta guud ka wada shaqeyno waxayna ka khaldan saxano nolosheena inaynu u midowno inaynu is-ablayno oo qolaba meel ku aadino dabeetana aan ku xisaabtano maxaa inoo qabsoomay sanadkii hore maxaa inoo qabsoomay sanadkan xagee u soconnaa ay inoo qorshaysan tahay haddii kaleeto dee sidaas qur-aanku inoo sheegay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam uu inoo sheegay ayaa dhacaysa nabigu xataa saxaabada uu la hadlayay sidii baa dhacday wuxuu yiri faras iyo room markaa furataan maxaa noqon doontaa
waxa imaan doontuu yiri in adduunyada laydiin furo aad ku tartantaan dabeetana aad iscolaadisaan dabeetana aad isu carootaan dabeetana aad isdishaan muslimiinta typical saasa ku dhacday markii dawladnimadii xoogaysatay oo barwaaqo la helay oo la geedkeeyay ayaa la isku soo jeestay waa la isku soo jeestay waa la isdilay waa la bahalkeeyay mudda lagu soo cirqay qarni iyo ziyaada adduunka la soo xukumayay akhiiran waa soo gururtay ninka andalus laga qabsaday ya isagoo muusig gabdho u tumayaan oo loo niikinayo ayaa nimankii saliibiyiinta soo galeen waa lagu leefay hooyadiisa waxay ku tiri hadda boqortooyadaada adaa saa u galay iska oy bay tiri sida dumarka iska oy way u muuqatay hooyadiis ninkaan meeshu ku socdo in hoo ka dambayn doono marka bulsho aan waxa guud wada ilaashan bulsho aan feejignayn bulsho aan wax soo saar lahayn bulsho aan tacab lahayn bulsho aan dhaqaale lahayn meel fiican ma gaarayso